soo dhawaada daawadayaal afur wanaagsan qodobada xiisaha leh caawa fiidnimadan aad halkan ku daawan doontaana waxa ugu waaweyn ciidamada beesha ciise oo gabi ahaanba diideen inay ka baxaan tuulooyin ay kala wareegeen maleeshiya beeleed ka samaroon sidoo kale qodobada aad halkan ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo tuulada Heemaal kadib markii ciidamada isku soo horjeeda beelaha ay ku wada dagaalamayay ee beesha ciise iyo beesha samaroon ay halkaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan ee caawa ay ka wadaan sidoo kale qodobada aad halkan ku daawan doontaana waxa ugu waaweyn dowladda Djibouti oo digniin adag u dirtay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland loogana digay in uu hubka Somaliland u gacan gelinayo beeshiisa ee beelaha Gudubursi ee beesha Samaroon qodobada kale ee xiisaha leh aad caawa halkan ku daawan doontaana waxa ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkiga oo lagu arkay hawada magaalada Hargeysa xilli cabsi badan ay soo wajahday saraakiil waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland oo ay sheegeen in haddii ay sii socdaan diyaaradahan dagaal ay soo ridi doonaan soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo faahfaahsan ayaa saaxiibayaal halkan idinkula wadaagi doonaa haddii ay baraali markaa laga helo halkan aad naga daawanaysaan waa Macaash Media haddii aad markuu ugu horeysay fadlan YouTube-kayga rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siina share garay saaxiibadaada la wadaag si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo sheekooyinka xiisaha leh halkan soo gelino rukumo fadlan channelkeena oo subscribe dhaho mahsanidin hagaag aynu ku bilaawno afur wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kasto aad dunida ka joogtaan oo aad muuqaalkan ku daawanaysaanba markasta waxaan idinkaga codsanayaa saaxiibayaal in aad garab igu siisaan oo YouTube-kan subscribe aad dhahdaan muuqaalada halkan soo geliyo si ay ku soo gaaraan hagaag aynu ku bilaawno dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa caawa laga dareemayaa tuulada Heemaal oo ka tirsan gobolka Awdal ama markaasi meel u dhow magaalada Boorama ayaana markaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan waxa ay ka wadaan ciidamada kuwa maleeshiya beeleedka Samaroon iyo waliba sidoo kale beesha Ciise kuwaas oo maalmihii dambe halkaasi isku ugaarsanaya dagaal xoogan oo u dhaxeeya beelahan iyagoona halkaasi maalmihii dambe ay ku wada dagaalamayeen xaaladda ayaana markaasi tuulada Heemaal ayaa ah meel ay si weyn u qasan tahay iyadoo dadka shacbiga ee caawa cabsi xoogan ay dareemayeen waliba halkaasi lagu arkayo gawaari dagaal oo ay dhinacyada isku soo horjeeda ay leeyihiin dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay baqdin badan ay dareemayaan maadaama xaaladdu ay halkii sida ay ku ogaayeen ay wax badan iska bedeleen dhaqdhaqaaqyadan ayaana waxa laga filan karayaa in saacad kasto ay rasaas halkaasi ka dhacdo mar haddii rasaasna ay dhacdana waxa ay noqon doontaa in ay foodes daraan beelaha Samaroon iyo waliba sidoo kale beesha Ciise walow aan loogeen dagaalkan beelahan oo sii daba dheeraaday oo halka uu ku dambeyn doono aan loogeen walow ay maalmihii dambe ay inta bisha barakeysan Ramadaan la galay ay dhaqdhaqaaqyadu ahaayeen kuwo yar balse laakiin aan raadiyo dagaal toos oo san dhixin balse laakiin dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan beelaha halkaasi ku wada dagaalamaya dadkan Soomaaliyeed waxa ay iyagu markaasi isku dagaalayaan wax markaasi aan qiimo badneen maxaa yeelay waxay isku haystaan dhulul iyo beero waxyaabo lamid ah oo dunidan looga tagayo iyagoona kumanaan qof oo shacab ah oo halkaasi dhiigooda lagu daadanaya dadka deegaanku waxa ay cabsi xoogan ka qabaan in caawa mar kale uu dagaal halkaasi ka qarxo haddii aan fiiriyona warbixinada kuwooda ugu doorkaroon ama markaasi qodobada iyagoo ka kooban wararka aan ka helayno galbeedka gobolka Awdal ayaa sheegaya in xiisadan u dhaxayso beesha Ciise iyo beesha Samaroon ay markaasi wali kacsan tahay iyadoona dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayo deegaano dhowr ah oo markaasi ay degaan beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale beesha Ciise iyadoona looga dagaal xoogan oo dhinacyadan isku soo horjeeda ay si weyn u dhaxmareen iyagoona dhibaatooyin ba'an ay isku geysteen ciidamada beesha Ciise ayaa la sheegayaa in ay diideen inay ka baxaan tuulooyin markaasi ay ku dhow yihiin waa markaasi tuulooyin ku dhawaan ay qabsadeen iyadoona ay ku doodayaan inay sugayaan amnigooda iyo waliba sidoo kale in ay ka shaqeynayaan nabadda iyo waliba sidoo kale in ay dadkaasi tuulooyinkaasi ku nool ay helaan nabad tuulada Heemaal ayaa tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan cusub oo laga arkayo halkaasi oo taasi sare u qaadayso cabsi laga qabo in dagaal halkaasi uu mar kale ka qarxo maadaama dadka tuuladan aan horay u baran dagaal ay dad beela ay halkaas isku dagaalayaan balse marba marka ka sii dambeeyo waxa ay dareemayaan cabsi xoog badan kaas oo la xiriirta dagaal beeleedyo in mar kale halkaasi ay ka qarxaan dhibaatooyin ay waxyeelo ay ka soo gaarto beelaha iyo waliba sidoo kale dadka shacbiga ee halkaasi diga
dhanka kale wararka haddii aan fiiriyana xukuumadda Djibouti ayaa iyadana warar hoose ay muujinaysaa walaa ay ka qabto xaaladda iyadoona markaa la sheegayo inay digniino u dirtay mas'uuliyiin waa markaasi ka tirsan maamulka Somaliland gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland kaas oo ku fogan in uu hub iyo waliba sidoo kale taageero toos ah oo u gudbinayo dhinaca markaasi ay isku heeyaan beesha ciise waa beesha Samaroone madaxweynaha maamulka waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland ayay ku eedeeyeen dawladda Djibouti inuu ka qayb qaadanayo xasarada iyo waliba sidoo kale dagaal beeleedyada ka socda gobolka Awdal iyo Salool taas oo sare u qaadayso in Djibouti ay iyana laftigeeda ay dhankeeda ay ka soo riixi karto beesha ciise ay hub iyo waliba sidoo kale gaadiid dagaalna ay uga talgaleen ama markaasi ay siiyaan balse laakiin dawladda Djibouti ayaa mar walba maamulka Somaliland iyo beesha ciise bay ugu baaqaysaa in ay sameeyaan xabad joojin si nabad loo helo dhanka kale ila deegaanka ayaana markaasi sheegeen in diyaarada markaasi laga leeyahay dawladda Turkiga lagu arkaya hawada sare ee deegaanka waa markaasi hawada sare ee magaalada Hargeysa inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin ujeedka duulimaadyada arintan ayaana cirka isku shareeraysa kadib markii maamulka Somaliland ay dhawaan sheegeen in ay aqoonsi ay ka heleen maamulka gooni-goosadka ee Israel oo aan dunida aqoonsi ka haysan maamulka Somaliland ayaana markaa hawada sare waxa uu ka arkay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga ay leeyihiin waa kuwa Bayraktar oo ah mid kamid ah diyaaradaha ugu mayalka adag ama kuwa ugu dheereeya ee dhanka dagaalka marka loo fiiriyo iyadoona cabsi xoog badan ay caawa soo wajahday dadka ku nool magaalada Hargeysa iyagoona ka cabsi qabaan xaaladda diyaaradan iyo waliba sidoo kale dhibaato ceenka ay geysan karto maxaa yeelay waxa markaasi jira dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay dawladda Turkiga ay ka wado dhanka Somaliland iyadoona markaasi dawladda Turkiga ay horay meel banaana la soo istaagtay in ay taageersan tahay madax banaanida Soomaaliya iyadoona markaa ay sheegtay in maamulka Somaliland uu yahay maamul ka tirsan Soomaaliya balse dawladda Turkiga ayaa maalmihii dambe waxa ay markaa kormeer ay ku wadaan deegaanada Somaliland iyagoona ay markaasi doonayaan in saldhig military halkaasi ay ka sameystaan walow aan ogsoonahay in saldhigooda military ugu weyn ee Soomaaliya ay ku leeyihiin uu yahay kan Muqdisho ku yaala xerada Turkisom balse maamulka Somaliland ayaa horay sidan dawladda Turkiga ayaa horay sidan oo kale waxay u tageen Gooja Cadde oo ah saldhig weyn oo ay Somaliland ay hore u lahayd oo ay ka qabsadeen ciidamada geesiyaasha daraawiishta kuwaas markaasi laascaanood ay kala wareegeen dagaal foolkafool ah ay la galeen ciidamada maamulka Somaliland maamulka waqooyi bari ayaa sidoo kale iyana qorsheynayaan in saldhig military oo weyn ay ka siiyaan dawladda Turkiga si ay iyaguna askar iyo waliba sidoo kale dad badan halkaasi looga tababaro haddii dawladda Turkiga ay ogolaato in Somaliland waqooyi bari ay ka dhisato saldhig weyn maamulkii ugu horeeyay dawladda Soomaaliya markaasi taabacsan oo ciidamo Turkiya u tababaraan maamulkaas ayay noqon doontaa walow maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ciidamada u tababaraan ciidamada Ethiopia haddana maamulada kale ayaana markaa iyana waxa ay inta badan ciidamadooda ay u tababaraan Imaaraadka balse laakiin Imaaraadka oo dalkan laga ceeriya ayay fursad u noqon doontaa dawladda Turkiga in maamul goboleedyo dhowr ah ay tababaro ciidamadooda ay u siiyaan xaaladii ugu dambeeyay 24 saac ee gobolka Awdal iyo Salool ayay daawadayaal kuwaasi ahaayeen haddii aad halkan nala soo gaarteen runtii waxa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad kanalkan soo subscribe gareysid oo muuqaalkan la garay siina share garay oo saaxiibadaada la wadaag ka mid noqo saaxiibada cusub ee maalinlaha ee sida wanaagsan ee noogu soo biiraya adiga noogu soo biiro oo nagala mid noqo YouTube-kayga Macaash Media oo aan rajeynayno in maalmaha soo aadan isbedel weyn aynu ka dareeno dhammaantiin waxaan ka codsanayaa saaxiibayaal inaad mar walba aad support gareysaan oo aad subscribe iyo like iyo aragtidiina baad nagu subscribe garey oo maartay nagu support gareysaan waa ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan dhammaantiin waa mahadsantiin sida aad noo daawanaysaan waa idinkaga mahad celinaynaa kulan dambe oo xiiso leh mahadsanidin